siyaasi muuse cabdilaahi nuur oo ka mid ahaa hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka waddani ayaa shaaciyey inuu iska casilay hoggaanka iyo xubinnimadii golaha dhexe ee xisbigaasi waddani siyaasi muuse cabdilaahi nuur oo ka hadlay sababaha uu iskaga casilay xisbigaasi ayaa waxa uu yidhi istiqaara ka dhiibay ama iska casilay ama ka tegey hoggaannimadii xisbiga golihii dhexe iyo xubinnimadii xisbiga waddani taasoo aan uga tegay sababo ii gaara oo aan doonayo inaan u madax bannaanaado howlaha anigu aan leeyahay sidii aan qoraalkayga ku sheegay waxaan mahad gaara u celinayaa hoggaanka xisbiga golaha dhexe iyo fulinta iyo dhammaan taageerayaasha gaar ahaan kuwa reer Gibley sababaha aan uga tegay waa soo sheegay marka xisbiga waxaan ku beeray kii urura 2012 kii bay ahayd waxaa la yidhi man caasha bilaa mabda maata bilaa karaama waxaan aad uga faraxsanahay oo inaan xisbiga howl badan iyo waqti badan geliyey doorashadiina si fiican ay noogu dhacday inkastay doorasho jiir badan iyo miisaan aad u weyn lahayd marka loo eego marxaladda sida xagga reeruhu structure-kana waxyaabo badan oo culays aan u dulqaatay maadaama maanta arrintii hore doorashada ay dhammaatay doorashadiina laga helay waxaan farxadaya inaan hawshaa hore xisbiga si fiican ula soo shaqeeyey sidaana aan ku nabadgeliyayo waa runtaa wax alla wax khilaafa oo jiro oo xisbiga kaga tegay ma jiro maadaama si marxaladii hore ee doorashadu ay dhammaatay kolley axsaabta qaranku way badan tahay iminka sababtaan kaga tegayna waxa weeyaan istiqaaradda u dhiibina waa arrimo aniga ii gaara laakiin wax khilaafa iyo wax istiidaa iyo milga aad u sharaf badan iyo wada shaqayn wanaagsan baa naga dhaxaysay waana mahadnaqayga maadaamaad xisbigii iska casishay oo aad sheegtay soo iska casishay maxaad kula talin lahayd xisbigaagii hore ee waday waxaan kula talin lahaa doorashada waa la kala helaa kulmiye waxa barigii la galay AD taageerayaal iyo reer ahaan midna buuq lagama maqal barigii waxaan oran lahaa maadaama sidii doorashada laga helo xisbiga waa laga helay waliba waxaan aaminsanahay anigu muuse ahaan doorashadii dalka ka dhacday inay ahayd doorasho aad iyo aad transparency u ah waxa u sharafa xisbiga wax ku helaya oo ku kasbanaya shacabkiisa dalkana wuxuu ah inuu nabadka iminka ku shaqeynayo uu bedelo xisbigu marka waxaan leeyahay hal la bedelo barnaamijka xisbigu ha bedelo dhinaca kale mar siyaasi muuse cabdilaahi nuur aanu wax ka weydiinay aragtida uu ka qabo xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi iyo heshiiska shirkadda gacanta ku haysa dekedda berbere ee DP World ayaa waxa uu ku jawaabay xukuumadda muuse biixi cabdi iyo talaabooyinka ay qaatay 3 bilood ee ay dalka ku nasay iyo sidoo kale khilaafkan DP World iyo Soomaaliya arrinta iyada fikirkaas horta madaxweynuhu waxyaabaha aad aan ugu bogadinay ka mid tahay 3 bilood imka shaqaynayay talaabooyinkan islaahay oo qaaday waa talaabooyin aad u khatar ah waayo waxa la yidhi aan gunta ka taloontaa dalku guntu ka baabay dawladii hore aan ficil dhibaatada ka sitay hal qarin waayo suuqeed kula laakiin maamulkii hore ee kulmiye dalka dhulku la hantida ummadda waa la beebaa qaatay talaabada uu qaadayna aad baan ugu bogadinayaa arinta DP urta Soomaalidu hore hadalka u dhameysay waxa la yidhi in aad 9 dalood ku golaho Kenya ku leh daltada laga fishay إلى وطن الاعتراف بيناي أقارهين واسكا أدوني تا المالجريتو مدبلو كسته كجيران waxaan ku qasbanahay oo dalka ku jirta
inaan maanta maalgelinta hirgelino wixii qaldana madaxweynaha waxa la yahay amad baa lagu sameeyo waliba aan dib geysanayn arrin kale ku jirta arrinta DBWM dhaqaalaha oo laga eeyo waxa ku jirta political bargaining wax la yiraahdo oo laga yaabaa inay Soomaaliland u soo jiido xulafad dambe cusub oo اعترافك iyo xulafaysanno dalkana qiimo badan samaysa iyo horumar samaysa marka yaa laga eegin xaq kaliya dhaqaalaha siyaasiyan baa inoogu jirtaa arrin aad u fiican horta Ethiopia waa customer weyn waa 1 million waa 100 million weeyaan hadii الدنيا مصالح بقى لي أرونا تي كان السي وحنا نسناه إنه يهي وهو يعني ولو سوى جيتوية وايو وحنا كبر جنجرينا وكستمر وي وين سوى جينا وين دكتينا قيبوا يا شو وين الدنيا سكرية نوح إبراهيم قبل كجبلي